munaasabada ciidul adxaa ayaa si ballaaran subaxnimadii hore ee saaka looga muujiyay isla markaana looga tukaday degmada widhwidh iyo dhammaan deegaamada hoos yimaada munaasabadan oo ay subaxnimadii hore ee saaka shacab weynaha reer widhwidh iskugu soo baxeen goobayaal kala duwan oo ku yaala gudaha magaalada widhwidh ayaa waxa ay ku muujinayeen munaasabadaasi iyagoo laba ragcadood oo sunnaha ku soo tukaday fagaaraha weyn ee dugsiga sare ee xirsi dhabarlow secondary school kadibna halkaasi ku soo gutay labada ragcadood ee sunnaha ah intaasi ka bacdi waa kuwan shacabka deegaanka oo raayigooda ka dhiibanaya munaasabadaasi ciidul waxaan aad ugu hambaleynayaa dhammaan dadka reer Widhwidh oo dhan oo ah dad ducadoodu aad u kacdo oo dad wanaagsan oo aan u soo ducaynay in Ilaahay roob noo shubo magaaladana Ilaahay wanaajiyo inta waxa raacda dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan Afrika iyo Amerika iyo Yurub waxaan u dirayaa hambaliyo magacayga horta waa Maxamed Maxamuud waxaan salaamayaa ummadda muslimka meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciidan ciideeda waxaad ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo amantu bil khayr الرحمن الرحيم dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair si khaas ah waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ummadda reer Khaatumo meel kasta joogaan dal iyo dibadba waxaan idin soo marnayaa wada salaam diiran oo kaliya laaba sallallahu alayhi wasallam waxaan salaamayaa dadweynaha maanta isugu yimid ciida garoonka weyn ee iskuulka anigoo Cabdi ciid maanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan alaykum warahmatullahi waxaan baliyeenayaa ummadda islaamka meel kasta joogaan ciid mubarak dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan baarig baan leenahay meel kasta jooga dareenkaygu aad buu faraxsan yahay dadweynaha sharafta leh soo ciiday meel kasta ay joogaan islaamka ah waa ciidul adxaa ciidii wareed weeye dhammaantiin salaam baan soo marnay hawada ciid mubaarak si kastaba ha ahaatee munaasabada ciidul adxaa ayaa guud ahaanba wadamada islaamka waxaa looga muujinayay si isku mid ah iyadoo ay shacab weynaha reer Widhwidh halkaasi ugu soo guteen si nabadgelyo ah kuna soo dhamaatay waji aad farxad uga muuqatay isla markaana shacabku hambaliyooyin iyo kullu caam wa antum bikhair ay isku marinayeen hawada cabdi Ciro telefishinka caalamiga ee Somsa TV degmada Widhwidh kullu caam wa antum bikhair